Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha kanaalka Ogaalo. Waxaa jiro waxyaabo badan oo noloshaada ku saabsan kuna haboon inaan cidna la wadaagin. Qalad ma ahan inaad cidna la wadaagin waxyaabaha u gaarka ah naftaada. Mararka qaar waxyaabaha aad ilaashato waxaa ku jiro wanaag. Haddaba maanta waxaan ku hayaa 10 shay oo ay tahay inaad cidna la wadaagin. Ku soo dhawow mowduuceena maanta. Nambarka koowaad hadafyadaada waaweyn. Haddii aad leedahay hadaf weyn oo aad rabto inaad xaqiijisid, waxaa habboon inaadan cidna la wadaagin. Waxaa laga yaabaa inaad u diyaarsatay wadooyinkii aad u mari lahayd xaqiijinta hadafkaaga. Haddaba haddii aad la wadaagto dadka maxaa dhici kara? Waxa ugu horreeya ee dhici kara waa in lagaa niyad jabiyo hadafkaaga, laguna muujiyo caqabado badan oo aan kuu muuqan, lagagana dhigo mid aan la xaqiijin karin. Haddaba waxa ugu wanaagsan waa inaad ka ilaashataa hadafkaaga dadka kale ilaa aad ka xaqiijisid. Nambarka labaad, wanaaga aad u samaysay dadka. Isku day inaad ka hadlin wanaaga aad u samaysay dadka. Sheegidda wanaaga aad samaysay waxay si fudud kaaga dhigayaan qof faan badan, ay dadkuna u arkaan inuu faan jecel yahay. Wixii aad samaysay ayaga ayaa ismuujinaya, uma baahna inaad sii sharaxdo. Haddii aad wanaag samaysa ka soo qaad adigoo naftaada wanaag u sameeyay, kuna xisaab wanaag walba aad samaysid ajar Allah agtiisa kaaga qoran. Nambarka saddexaad, noloshaada gaarka ah. Noloshaada gaarka adiga ayay ku qusaydaa. Waxaa jira waxyaabo gaar ku ah oo ay tahay inaad ilaaliso, sida qofka xiriirka kaala dhaxeeya. Waxaa laga yaabaa dhalin badan inay wax wanaagsan u arkaan inay la wadaagaan xiriiradooda asxaabtooda, laakiin wax fiican ma ahan. Waxaa kaloo ka mid ah inaad ilaaliso dabeecadahaaga gaarka ku ah. Sheegidda wax kuu qaaska waxay kaa dhigaysaa qof aan qiimo lahayn. Qarinta waxyaabaha kuu gaarkana waxay kaa dhigaysaa inaad noqotid qof dadka ixtiraamaan. Nambarka afaraad, hantidaada. Haddii aad leedahay hanti ma ahan inaad muujiso inaad hanti leedahay, waayo lacagtu waxay kala fogeysaa saaxiibtinimada iyo qaraabanimada. Haddii aad u muujiso dadka waxay isku dayayaan inay kugu soo raacaan lacagtaada. Haddii aad lacag leedahay ku raaxayso, laakiin ha u sheegin dadka. Nambarka shanaad, jadwalka noloshaada. Qof walba waxa uu leeyahay jadwal u gaara oo nolosha ku hago. Muhiim ma ahan inaad dadka u sheegto waxa aad qabato mar walba, sida xilliga aad seexato, xilliga aad soo toosto, dadka aad la kulanto. Haddii dadku jadwalkaaga ay fahmaan, waxaad noqonaysaa qof si fudud loo saadaalin karo, xataa la ogaan karo xilli walba goobta uu ku sugan yahay. Waxa ugu wanaagsan ayaa ah jadwalkaaga inaad ka ilaashato dadka kale oo adiga kaliya aad ku dhaqantid jadwalka ku dagsan. Nambarka lixaad, dhibaatada qoyskaaga. Famil kasta problem waa uu ka dhex jiraa, marka cidnaha la wadaagin dhibaatada qoyskaaga. Mar walba aad la wadaagto dhibaatada qoyskaaga dadka kale, waa mar kasto ay ceebi ka soo gaarayso qoyskaaga. La wadaagida dhibaatada qoyskaaga waxay ka dhigaysaa qof qiimo ahaan liita, dadkuna aysan xishmayn. Dhibaatada guriga ka dhacda xalkeeda waxa uu yaalaa isla guriga, marka ilaali oo cidnaha la wadaagin isku dhaca qoyskaaga. Nambarka toddobaad, dadka kala sirahooda. Noloshaada u yeel dooq ah inaad dadka kala sirahooda ilaaliso. Ha noqon dadka jecel inay ka hadlaan dadka kale arrimahooda u gaarka ah. Ha xamanin dadka ku mashquultaada. Qofka hadduu kuu sheegto sirtiisa waxaa waajib kuga ah inaad ilaaliso sirtaas. Haddii aad cid la wadaagto waxaa burburaya aaminaada iyo kalsoonida uu qofkaasi kugu qabay, waxaana ka dhalanaysa ama ay sababi kartaa inuu qofkaas xiriirkiina baaba'o. Haddaba siraha dadka kale cid kale ha la wadaagin. Nambarka sideedaad, meelaha aad ka jilcan tahay. Qof walba waxa uu leeyahay meel uu ka dabacsan yahay. Sheegidda meelaha aad ka jilcan tahay kaama dhigayso inaadan lahaan doonin meel aad ka dabacsan tahay. Ogow dadku waxay ku raaxaystaan inay ogaadaan qofka halka uu ka jilcsan yahay, marka hala wadaagin cidna halka aad ka dabacsan tahay. Nambarka sagaalaad, ha ka sheekayn wixii xumaa ee tegay ee uu qofku geystay. Ka sheekanta wixii xumaa ee tegay meelna kama caawinayso. Wixii tegay way tageen, u qaado khibrad. Haddii aad ka sheekayso wixii xumaa ee tegay, waxaad noqon doontaa tusaale dadku ay isticmaalaan meel walbana laga sheego. Qofkii ku xumeeyay iska cafi, iskana ilow. Waxa kaliya ee ku caawin kara waa kaas. Cafiska ugu wanaagsanna kaas ayaa ah. Nambarka tobanaad, tayadaada ama talentigaaga. Tani way habboon tahay inaad dadka la wadaagtid, laakiin ma ahan hadal ahaan ee ula wadaag ficil ahaan. Markii la gaaro waqtigii aad soo bandhigi lahayd tayadaada, la wadaag ugana soo bandhig qaab adigoo si toos ah u samaynayo talentigaaga. Sheegidda talenti aan ficil la socon, dadku waxay ku qaadan karaan qof afka kaliya ka nool, wax ficil aan lahayn.
ku dhaqan caadooyinkan tobanka iskuna day inaad ka ilaashato qof walba kaama celinayo inaad dadka dhexgashid lana sheekaysatid laakiin mid ogow muhiim maahan inta dad ee maalinkii aad la hadlaysid ama aad waqti la qaadanaysid waayo ugu dambeyntii keliga ayaad noqon doontaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu